السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaa jiray qoys sabooda oo ku nool meel magaalada weyn ka baxsan. qoyskaasi waxay xoolo lahaayeen saaqura. qoyskan oo ka koobnaa aabe, hooyo iyo carruurtoodii. dhammaantood waxay ku noolaayeen saas. habeenka caano badan laga liso, caano badan ayay cabaan. habeenka caano yar laga lisana, caano yar ayay cabbi jireen. xubnaha qoyska oo dhammi waxay ka shaqeeyeen saas. mid casuurkeena, mid xarigga ku xidhan, mid dhiisha soo qaada, mid lista. nolosha dhan ee qoyskaasi sidaas bay ahayd. galabtii dambe ayaa waxa qoyskii ku soo hoyday nin dhalinyaro ah. qoyskii ninkii dhalinyarada ahaa si wacan bay u sooreen. gogol bay u dhigeen, caanihii sacana waa ku sooreen. ninkii dhalinyarada ahaa oo arkay saboolnimada qoysku ku nool yahay haddana la dhacay gobonimadooda ayaa si wacan ee ay u sooreen iyaga oo aan waxba haysan. waxa uu go'aansaday inuu qoyska u abaalgudo, balse ma uusan garanin waxa ugu mudan ee ugu abaalgudi karo. sidaas darteed ninkii dhalinyarada ahaa waxa uu tegey nin murti iyo garasho badan lagu sheegi jiray. ninkii dhalinyarada ahaa waxa uu tegey ninkii abwaanka ahaa ee murtida iyo garashada u saaxiibka ah. waxaana uu sheegay sheekadiisii iyo tan qoyska halkaas lahaa, isaga oo ka codsaday in uu sheego sida ugu wanaagsan ee uu qoyskaasi ugu abaalgudi karo. ninkii garaadka badnaa waxa uu ku yidhi wiilkii saca gowrac, yacni qoyska si wacan kuu sooray socda dil aan lagu gowrac. ninkii dhalinyarada ahaa oo yaaban ayaa ku yidhi, ma halka sac ay qoysku xooloo dhan ka haystaan baan gowraca? abwaankii waxa ku yidhi, ha gowrac sac. wiilkii oo la yaaban talada abwaanka ayna ka daadegi laadahay ayaa haddana raacay taladii oo qoyskii galab kale ku soo hoyday. sidii hore si la mid ah ayaa qoyskii wiilkii u sooreen, balse habeenkii saqdhexe markii ay tahay ayaa uu wiilkii kacay. siciina waa gowracay amba waa bireeyey oo birta kaasleh. sanad kadib ayaa wiilkii qoyskii ku soo noqday oo mar kale u soo martiyey. ugu horreynba wiilkii waxa uu dareemay isbeddel nololeed oo qoyska ku dhacay. horey qoysku qol cariish ah ayaa ay u deganaayeen, balse caawa guri weyn oo dhagax laga dhisay ayay degayeen. sidaasoo kale guriga berberkiisa beer weyn oo wax waliba ay ka baxaan ayaa ku taal. xeradii uu ku xidhnaan jiray halka sac ee u gowracayna caawa hormallo ah ayaa ku xaraysan. wiilkii oo la yaaban ayaa odaygii qoyska weydiiyey, adeerow hadda ka hor maraan idiin imid nolol middan ka hoosaysa ayaad ku nooleydeen ee maxaa isbedelay? odaygii waxaa ku yidhi, maandhow sanad ka hor xoolo adduun saaca baannu ka lahayn. siciina nin habeen lagu hoyday baa naga gowracay, laakiin nin ilaahay inoo soo diray ayuu ahaa. markii siciin naga baxay ee aannu faramanaan noqonnay ayaannu nin beereley ah miro aababasiidh ka soo amaahnay. dabadeed beer ayaannu ku falannay, taas oo ilaahay noo barakeeyey. oo beertii wixii aannu ka goosannay ayaan suuqa geelnay oo lacag adagna naga soo gashay. taas ayaana gurigan aanu ka dhisannay, loodanna ka iibsannay, carruurtana waxbarasho u weysan. wiilkii oo iminka gartay ujeeddada taladii abwaanka iyo awooddeeda ayaa halkii isaga soo tegay. haddaba bal suuree nolosha qoyskaas. noloshoodu isbeddel intaas leegi ma ku iman lahaa haddii aan saca laga gowrici lahayn? ma u malaynaysaa in qoyskaasi socooda dili lahaayeen? maxaase qoyskaasi ka hor taagnaa intaan sac la gowracin inay isbeddel nololeed sameeyaan? jawaabtu waa inay qoysku ku jireen waxa loo yaqaano comfort zone, oo ah in qofku waxa uu yaqaano iyo nolosha uu yaqaano uusan jeclayn inuu ka dhex baxo oo uu isbeddel sameeyo.
isaga oo isbeddelka ka cabsanaya amaba se aan ku baraarugsanayn. Taasi waxaa sababaya inuusan yool iyo higsi lahayn. Qofka yoolka iyo higsiga leh waxa uu la kulmaa amaba aqoonsadaa saca hortaagan ee ka hortaagan gaarista yoolkiisa iyo halka uu socdo. Waxaana uu noqon karaa shaqada aad haysid amaad ka shaqaysid saaxiibada magaalada iyo dalka aad joogtid amaba caado kale oo leedahay oo ka hortaagan in uu banaanka uga baxo eedega yar ee ka fursoomka layaaq ee uu ku dhex jiro. Sidaas daraadeed saca la aqoonso kadibna gowraca waa halkii ay maamaadii Soomaaliyeedna ka ahayd barti yaqaan bari uma korodho.